gabadhan asawirkeeda u jeedaan waxaa la yiraahdaa Coach Maryama magacaas ay ku isticmaashaa baraha bulshada waa gabar dhalinyaro ah oo iyada oo asturan oo xijaaban waliba muuqaalada ku soo gudbiso baraheeda bulshada laakiin sabab la yaab leh oo masiir umadeeda oo qof walba oo Soomaali ah uu ku farxi doono ayay u timid magaalada Muqdisho iyadoo uga soo safartay dalka China oo aan ognahay dhibaatooyinka iyo safarka intuu leeyahay marka laga imaanayo China horta sababta ku kaliftay inay Muqdisho timaado waa sababtaan ila arag 你好， 你好， ，Hello， 去哪里？ 索马里， 啊， 索马里， 索马里。OK， 索马里， 索马里，索马里怎么？没有没有没有没有，啊，这索马里。 waxaan dhahay ma dadkii islaan jiray ba ma dadkii islaan jiray mayo 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 iyadoo dalka Shiinaha joogto oo wadooyinka mid kamid ah magaalooyinka dalkaasi dhex marayso ayaa nin ku yiri xagee ka timid waxay ku tiri waxaan ka imid Soomaaliya durbadiiba wuxuu la soo booday Soomaaliya halkii la isdilin jiray oo la isleen jiray mar kale iyada ay sharaxaysa waxa dadkaasi Chinese-ka ay ka aaminsan yihiin Soomaalida markay ku qoraan Soomaaliya ama Soomaali markay ku qoraan Google-ka waxa u soo baxa sawirada oo kale iyada oo aan qofna dirin ayaa waxa diray damiirkeeda waxay go'aansatay inay tikitka iyo kharashka iyo nolosheeda iyo wax ku baxayaba ay iska bixiso iyada si magaalooyinka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ay u soo bandhigto quruxdeeda iyo sidoo kale qiimaha dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin ayay go'aansatay waatan iyada ayaa sheegaysa sida daraadeed waxay igu kaliftay inaan wadanka imaado oo aan kharashka anigu iska soo bixiyo si aan u gudbiyo sawirka Soomaalida iyo wadanka ee quruxda badan si aan adduunka ugu gudbiyo sida daraadeed waxay aaminsan yihiin wadankan inuu yahay wadan la iscuno sidoo kale burbur iyo dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan oo aan ahayn wadan jiraba adduunkaba haddaba qofka Soomaaliga ah ee si uu magaca Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed u qurxiyo inuu China uga yimid miyaan awoodin adiguna inaad qurxiso oo aad isaga u tagto waliba muuqaaladiisa page-kiisa YouTube-kiisa aad u follow gareysaan gabadhaas waxaan idin ka codsanayaa inaad inta tagtaan baraheeda bulshada Coach Maryama ayaa ugu qoran inaad like iyo sidoo kale follow aad dhahdaan waa idin ka codsanayaa muuqaalkaana si dadka Soomaaliyeed oo dhan u gaaro like noo saara siina share gareeya commentigana ku dhiirigeliya oo iga codsi gabadhaas maanta aan kor u qaadno dadka Soomaaliyeed had dareento inay dadka dhalatay runtii aniga kula hadlayo waligay wallahi ismaanan arag gabadhaas ma wada hadlin xitaa ma wada hadlin laakiin damiirkayga ayaa faray waxa iyadoo ay garato in aan garto oo aan dhiirigeliyo oo aan kala shaqeeyo sidii ay China ay ugu gudbin lahayd waxaas quruxda badan leh ee ay dalkeena u timid soo dhawaada saaxiibayaal marwo fertility center xarunta ugu fiican daaweynta cudurrada keena dhalmala'aanta rag iyo dumarka nagu dooro daaweyn qalliin iyo bacriminta IVF waxaan kula jirnaa ilaa aan dhabta kuu saarno ubad ilaahay idankii sidaan hordhaca barnaamijka idinkugu sheegay gabadhan ay u jeedaan Coach Maryama ayaa la yiraahdaa baraha bulshada ay magacaasi ku isticmaashaa waxay kamid ahayd dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka China halkaas ayay joogtay markii haddaba ay tagtay China iyada oo muuqaal duubayso oo mid kamid ah wadooyinka magaalada dhex marayso ayaa la weydiiyay xagee ka timid waana wax caadi ah in dadka marka aad dalal kala tagto qofka aad u dhalan wadankaas marka uu dareemo inaad tahay qof ajnabi ah inuu ku weydiiyo su'aal xagee ka timid ama wadankee ka imaatay isla markiiba waxay u sheegtay inay ka timid Soomaaliya laakiin ficilka ku xiga oo ninkaasi muujiyay waxay ahayd Soomaalidu ma dadkii isleynay ma dadkii isbaabiinay oo iscunay ma yeeleedahay ayaduna gabadhu waa ka diiday waxay leedahay Soomaaliya maaha waxaas oo dhan runtii waana ta ku kaliftay inay ka soo degto garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho si ay u beeniso qodobkaasi gebi ahaanba ay meesha uga saarto runtii waa gabar dhalinyaro ah oo duruufo kala duwan laga yaabo inay ku xeeran yihiin sida dadkeena caadiga ah ee wada jooga adduunka oo dhan sida qof walba oo duruuf gaar u leeyahay ayaa laga yaabaa iyadana inay u leedahay laakiin waxay ticket u jaratay oo waliba kharashkiisa uu qaali ah oo jeebkeeda ah waxay u imaatay Muqdisho oo xitaa laga yaabo inaanay cid badan aanay ka garanaynin oo ay kharashkaas u bixinaysaa si ay magaca dadka Soomaaliyeed ay u muujiso inuu yahay magac qurux badan dalka Soomaaliyeed inuu yahay dal qurux badan oo dhibaatooyinkaas hadda laga faafinayo aanay ka jirin runtii
soomaaliya waxa ugu weyn ee dhibaatada ku haya waxaa ka mid a muuqaaladii iyo sawiradii hore ee dalkeena hore looga baahiyey oo warbaahinta caalamiga iyo midda gudaha labaduba ay ka baahiyeen oo ah dagaalada burburka iscunka dilka sidaasi darteed waqti badan ayay qaadan doontaa inaan baraha bulshada la geliyo muuqaalada quruxda badan ee soomaaliya maanta ay leedahay gaar ahaan caasimadda ummadda soomaaliyeed oo qaraxadii ka nabad gashay dhibaatooyinkii kale ka nabad gashay daarihii burbure dib loo dhisay laamiyadii la hagaajiyey horumar iyo qurux uu ka muuqdo maanta muuqaalkaas in la geliyo warbaahinta oo uu isbedelo keynii hore waqti badan iyo juhdi badan ayay nooga baahan taha dadka sidaanoo kale ay ka shaqaynayana waa inaan intaan garab istaagno aan ku taageernaa coach maryamo waxaan leeyahay anigu shakhsiyan hore u soco walaashay wax walba ayaadna u qalantaa waa mahadsantihiin gabadhaas aan dhiirigelino taga youtube-keeda iyo page-keedaba u follow gareeya muuqaalkaana leeg noo saaro sii sheer gareeya waa mahadsantihiin saaxiibayaal